وهاجاك دغيستيالي مكانه waxa ku soo dhawaataan qaybtii afraad barnaamijyadii xiriirka aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida barnaamijka horena waxa ugu dambeeyay aanu ku soo qaadnay markii boqorkii dalka Itoobiya boqor Haile Selassie uu ka sheegay magaalada Qabridahare in dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee reer Itoobiya inta kadib hadaba waxa sii xoogobay doontii Soomaalidu ay doonayeen inay madax banaan helaan koonfurta iyo waqooyigaba iyadoo markaas ay hormood ka hayeen xasaabtii SNL iyo SYL bishii December sanadkii 1959 ayaa golaha guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa ay gaareen go'aan lagu soo afjarayo xilligii Talyaaniga loogu dhiibay koonfurta Soomaaliya inuu maamulo waxaana ka dhigeen waqtigaas inuu noqdo bishii July 1 sanadkii 1960 waxaana taas laga soo horeysay waqtigii markii hore loogu talagalay muddo 6 bilood ah Umar Ataqalib oo ka hadlaya ololihii gobonimo doonka bal hadda mar kale aan ku celino bishii May 1959 ayay soo saareen qaraar ay leeyihiin waxaan siinaynaa xorriyad istiqlaalkooda ha qaateen 17 February ee sanadku markuu 60 yahayna election ka dhaco doorasho ka dhaco halkaas aad safxad cusub ka bilaabantay markaas dadkii kaceen oo maxaan ku yiraahdaa shucuurtooda samada tagtay yar iyo weyn rag iyo dumar markaas aad beeto afar xisbi oo siyaasadeed ayaa markii waqtigii yimid ka qayb galay doorashadii SNL NUF USP iyo SYL doorashadii markii la galay waxa deeto helay aqlabiyadii xisbigii la oran jiray Somali National League 20 kursi ayuu helay USP waxay heleen oo la oran jiray United Somali Party 12 NUF National United Front kursi buu helay halka waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamo markii dariiqada Ingiriiska la xisaabiyay dadkii vote-ka bixiyay SNL iyo USP waxay heleen 55 boqolkiiba 55 NUF-na dadkii markii la xisaabiyay waxay heleen 45 boqolkiiba 45 laakiin haddana nidaamka Ingiriiska ayaa ah kursi walba laba nin la kala dooranaya haddii mid keeno kun ka kalena uu 990 keeno ka kun ka helay amba la siiyay u qaadanaya sidaas awgeed ayay taasi ku dhamaatay kaas waxa Umar Ataqalib oo ka hadlayay sidii lagu helay gobonimada iyo doorashadii ka dambeysay bishii May hadaba labadeedii ayaa hogaamiyaal ka socday Somaliland ay yimaadeen magaalada London si loo jaro xiriirkii isticmaalka ahaa ee ka dhaxeeyay Ingiriiska waxa waqtigaas loo ogolaaday in xornimadooda ay qaataan 26 June sanadkii 1960 wafdigii barigaasi London yimid waxa kamid ahaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal barigaasi waraysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu Cigaal ku yiri waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd iskooda secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay ina kulli kooda darsantiin baan mareynaya maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxa ma dawladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asaxatee in meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo ee dawladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay dabta labadii casho hore aan saragnayba baadniin arrinku la baarayay dadka meesha jooga iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baarayay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1 July 1 inaynu dawladda haano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiis noqday Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waxa kaloo isla maalintaasi ka hadlay hawsha u taala dadka Soomaalida dawladnimo loo qayliyaa dawladweynaha doonina la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylinay helay dawladnimadiina asaataka ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynkaas way naga tagay July maalinta July baynu walaalin Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna markaa ku hadhay baa hawle haysaaye talada maanta
tala weyn weeye inaynu isu talin karno wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna linaga bax ajnabiga inaga maanta liinoo kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxa inagu la qabtay waa tahay dhegaystayaal haddaba soomaalidii talyaanigu xukumayey iyo tii ingiriisku xukumayeyba waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii juulaay 1 sanadkii 1960 dhinaca waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horeeyey maalintii calanka la saaray magaalada Hargeysa allaha u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timcade isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi calankaanu sugaynayeen sangiisaynow سرما ويدو هلاعدايو زغال مانتا ضرورادو سيغادي نغميدايو زقدحان وهينه كيسو ساراي عدعادو سماكي وكايا حديغا مدلسيايو ساحركي كالغوري سريو منسقامو أنسدو يهي إغنوه كنسيب كنصار ساهدين تا إسلام كوي سبع ساجم عياشيو سبيان تايو هوانكو علن كيسات شينو إذنا كانين سينين ساتر نوغو يبايو زاحركي كالغوري سريا من نسقامو أنسدو يهيقنوه كنسيب كنصار الله نحرسته عبد الله سلطان تيمعده oo ka gabiyay habeenkii calanka la saaray magaalada Hargeysa intii haddaba aanay labada gobol aanay xornimada qaadan waxa muddo laga wada hadlayay sidii loo midoobi lahaa arrintaasi sida u dhacday waxay noo faahfaahinaya mar kale Umar Artaqaalib shirkii ugu horeeyay ee Somaliland baarlamankeedii uu qaatay ayaa wuxuu u diray taar Soomaaliya baarlamankeedii oo markaa uu madax ka ahaa Aadan Cabdulla Cusmaan iyagoo leh haddaanu reer Somaliland nahay baarlamaankii masilayna nahay waxaan doonaynaa inaanu mid noqono calan kaliya yeelano dawlad kaliya yeelano iyadoo aan shuruud lahayn waxaanu doonaynaa arrintaa inaad si degdeg ah wax uga qabataan noona soo jawaabtaan baarlamaankii Soomaaliya aad buu u soo dhaweeyay arrintaas mabda ahaan laakiin kumay degdegin oo markiiba umay soo jawaabin markii dabadeed arrintaasi sidaas talaabadii ugu horeysay ay saas noqotay ayaa Aadan Cabdulla Cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hogaaminayo Dr. Mohammed Sheikh Gabyo oo markaa ahaa Minister of Constitutional Affairs يعني وزيركي arrimaha dastuurka
iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin talyaaniya khabiir talyaani ah oo ingiriisida si fiican u yaqaan waxay markaa kusoo horeeyeen unionkii aan idin sheegay Somali Officials Union oo aan saan hore sheegay ahaa aad iyo aad awood xooga lahaa dawladdu ixtiraamsan tahay dadkuna ixtiraamsan yihiin marka maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii qamaamuurta sharafta lahaana ay guddida fulinta ay ka mid yihiin ayaan isugu yeedhay shir waxaan idhi arrintaasaa layna weydiiyey waxaan jecelahay inaynu ra'yigeena ka dhiibano taasoo ah waxaanu maqalay Somaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan odaygu wuxuu ku soo adkeeyay wafdiga waa in shuruud la yimaada intaan midnimada la hirgelin markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota haddaan xusuusiyo annagu markaa yani powerka siyaasiga gacanteeda kuma jiro laakiin waa urur cid waliba dawladda ingiriisku ay taxkiliso dawladda Soomaaliyeed markaa dhalatayna ay taxkiliso dadka Soomaaliyeed ay taxkiliyaan waxaanu shuruudda soo socota qodobkii u horeeyay wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba Somaliland amba Soomaaliya prime ministerku ra'iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horeeyay qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 60 qodobka saddexaad wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiican loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay qodobka afraad haddii caasimaddu ay meel noqoto xataa maanu odhan muqdisho safaaradii caasimadda timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale jeyshka wadaniga ah waa in nin sarkaalah oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa booliiskana sidoo kale yacni la qaybsadaa midna Somaliland ay hogaamisaa raggeedu midna Soomaaliya raggeedu uu hogaamiyaa shaqaalaha dawladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la oran jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo waayo waxaanu ogaanay xagga Soomaaliya koonfurta in mushaharku aad iyo aad u hooseeyay markii dabato ay barlamaankii u tageen barlamaankii Somaliland odayaashii xisbiga iyo dawladda markay u tageen waxa ay barlamaankii ay cadeeyeen waxay yiraahdeen ma doonayno inaanu wax ka hor yimaado taarkii aanu u diray samayn macnaahu waxaanu nidhi بدون قيد أو شرط شروط بأن بانكو إيمانينا مركا إمكا أنه يدو عين كانوا نري إمكا أنا شروطا مدونين إنانو إدين ديبنو مركا بيشي أبريل الشانية 10 كيدي أيا وفد الله ديري مقدشو وهو قامين أيو محمد إبراهيم عقال وضياش خلال السعودانة أي أحايين ستصوص عطا أحمد حاج الدعالة وأها مينستري وزيرك ثرواتك طبيعية علي قراد جامع وزيرك هولها جود حاج إبراهيم نور وزيرك أخيمها بولشدة وحكى له برلمان كراعي يوسف إيمان محمد علي فارح عبد الله محمود قبلا موسر هبيله هذه أدبا لو سودويي مركي أي تجين تدخل سودويين saaxiibadood baarlamaanka Soomaaliya ay soo dhaweeyeen maalintii labaadba waa la fariistay oo shirba la isugu horiyimid haddii aan tilmaamo geesta koonfurta amba Soomaaliya waxa chairman ka ahaa shirkaas aadan Cabdul Usmaan oo markaa baarlamaanka u sareeyay Abdullah Ciise oo prime minister ahaa Maxamed Sheekh Gabiyow
oo ahaa wasiirkii arrimaha dastuurka maxamuud cabdinuur juuju lagu magacaabi jiray wasiirka howlaha guud iyo isgaadhsiinta maxamuud yuusuf aadan muuro oo ahaa wasiirka tacliinta sheekh maxamuud maxamed faarax oo ahaa wasiirka cadaaladda xaaji bashiir ismaaciil oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka cabdulqaadir maxamuud aadan soobe oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo xaaji cabdillaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad marka bisha 16 ilaa 22 yani abriil ayaa la fadhiyey kaasi waxaa cumar carte qaalib waxa isaga haddaba aanu arrintaysna ka waraysanay ku saabsanaa isku darsiga labada dhinac cabdilqaadir maxamed aadan soobe oo sidii cumar carte uu sheegayba ka mid ahaa guddidii ugu horreysay arrintaasi isugu timi ee ka wada hadlaysay ahaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya su-aasha aanu weydiinayna waxa ahayd sida tan cabdiqaadir waa tii la isku darsamay sidii imika aad lahayd saraaxadha loo wada hadlana dadka in wax badan laga qanciyay rabaan bini aadamku markii la isku darsaday wax shuruudihii may jirin oo waa tii la israacay soomaali weyn kalena waaba la sii doonayay maxay ku dhacday bay kula tahay adiga fikrad ahaan in koonfurtu madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxdii ciidamada intuba ay koonfur noqdaan iyo caasimadii waxaan ku leeyahay waxay ku dhacday waxa waaye condition ma jirin conditionkii la rabay in la keeno Somaliland يعني واسكديبتي واسديبتي marka wax shuruudo lagu xiray ma jirin conditional jiraa'ي qabiil baan hayo kana hayo midna ma jirin waxay raadeen nimid waa ka soo talaya jamhuuriyaddii Soomaalida ee dhalatay wixii ugu weynaa ee barnaamijka u noqday waxay ahayd sidii loo rumayn lahaa Soomaali weyn dhibaatada arrintaasi ay lahayd ma ahayn mid dawladdii Soomaalida ka qarsoonayd ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee labadii gobol ee midoobe ay yeesheen oo ahaa Cabdirashiid Cali Sharmarka Allah u naxariiste oo arrintaasi marka hadlaya waxa uu yidhi nasiib darrada nahaysaa waxa weeye in wadamada Afrika ee dariska aanu nahay ee ay tahay inaanu ka shaqayno kor u qaadida xiriir saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo na dhexmara inaana ahayn kuwa iyagu daris ama jaarka noo ah waxa dariska iyagu yahay Soomaali aanu wada dhalanay oo dhalashadoodii ay ka been sheegtay soodin aan loo miidaandayn waxaanu wadaagna af habnololeed dhaqan iyo diinba markaasi sidee ayaanu walaalahayo uga dhigi karnaa dad shisheeye ah 29 bishii abriil sanadkii 1961 ayuu Cabdirashiid ereyadaasi ku dhawaaqay haddaba cumar carte qaalib oo muddo dheer ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ka horna ahaan jiray danjira Soomaaliya dibadda oo fadhiya oo aan wax ka weydiinay dhibaatada Soomaaliya ay kala kulantay dalalkii kale ee Afrika marka ay timaado Soomaalidu dhulka ay sheeganayso waxa uu cumar yidhi markii istiqlaalka la qaatay Soomaalidu ay midowday waxa markaa dawladihii markaa jiray ay ka dhigteen bartilmaameed siyaasadda dibadda in la xoreeyo dalalkii kale ee Soomaaliyeed ee maqnaa waana la hareereeyay bilxaqiiqa isbahaysi baa dhacay yani annagana la hareereeyay yani Soomaalida la hareereeyay iyadoo dawlad yaro markaa soo koraysa ah ayaa ciriiri weyn la geliyay adii sababa waxay noqotay xaruntii jamciyaddii Afrikaanku ay samaysteen madaxda Afrika OAU boqor Hayle Salaase wuxuu ahaa nin caan ah nufuudna ku leh adduunka waxaanan oran karaa qaraarkii madaxda Afrika ay gaadhay ee OAU-da ku soo baxay magaceeda isaga ka dambeeyay ee la yiri waa in xuduudu sidii isticmaalku uga tagay ay ahaataa cumar carte qaalib qaybtii afraadna intaas ayay ku dhantahay sidaa iyo nabadgelyo